بناية عاو ملك أيا قيلنايا أو دهايا ويا باغي الشر أقصر ورمد كشرت جعلو قابس بشان بشي شرط مئه بشان بشي حمانت معها بشان بشي ددك حوله ذا لدعايي معها بشان بشي ددك لدلايي معها بشان بشي ددك حمانت لقارسين لها معها بشان بشي ددك بيع لغو قياني لها معها بشان بشي حمانت لدقيسن لها معها بشان بشي ددك لباتد لقارسين لها معها بشان بشي شرط يا حمانت لقجري لها معها ويا باغي الشر ورمد كشرت أهيلنا وأقصر أذيقنا قابصو صونق أيا لليهي مع ذلك ددك خيرك إيا وناق جعل ساسا الله دها ددك شرط ربنا قابس أيا لليهي ورددك فدي قوبها لغو قيلو كسوكعا ربيقين كعبصد أو خيرك إيا وناق قددالا ددكي خيرك إيا وناقي كلبوبيان ادقي إيا حرينتي نارتا لراذينو يا عاوة البابه جندا فرفرا عاوة كوي نارتا أيا لحرحري عاوة إذن كان فسق إيا حمان أيات كل حجرتان وربيقين كعبصد إيا مساجد دا سو عمرا بشان وابشي توبة كينك إيه ربيقين أطيعة خيرك إيا وناقة كدذالة موزيكا إيا هيساها دقي سنين قرآنك وابشي لسودجي قرآنك أقرية مع ذلك أيو إلهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشهر رمضان وابشي قرآنك لسودجي بشهر رمضان وابشي خيرك إيا وناقة لوغو تلقلي بشهر رمضان وابشي خيرك إيا عزك لها ولا ليال دذالة oo rabbigiina ka cabsada ma ogidin miyaa dad fara badan oo ramadaankii horena la soomay oo nala joogay maca daalika ramadaankan inaysan soo gaarin oo ay qabriga u hooydeen ma ogidin miyaa dad fara badan oo ramadaankan gaari doona oo anaga naga mid ah inay xaqiiqo tahay inaysan kan dambe gaari doonin oo ay lixdiga iyo qubuurta u hooyan doonaan sidaa hayeelina xumaanta ka soo kaca caawa bishii khayrka iyo wanaaga noo curatoo noo dhalatay dadkii hore 6 bilood ayay rabbi ka baryi jireen in ramadaanka la gaarsiiyo 6 bilood oo kalena soonkii ay soomeen ayay rabbi ka baryi jireen in laga aqbalo مع ذلك رمضان كهبينكي سذا واي وبينك أغهري يا منادقة أيا سناذنا يا أورها يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار إلهي عتقاء يضفر بضن أو نارتك حرية أيا أسغناتي وذلك كل ليل وانا هبين والبأ يري النبي صلى الله عليه وسلم هبين والبأ يا عتقاء جرتا maxaan cusaqa iyo naar xoreen raadina dadkan dhacnaa oon dilnaa oon xoognaa oon kufsanaa ramadaan inuu dhashay iyo in kalaba dadaa qaafilka ah dadaan ogeen oo xumaan ku jiray ogaada war rabbigiin khayrkiisii wanaagiisa sameeya waxaa laydiin tilmaamaayo khayr iyo wanaag ayaa ku jira waxay khayr iyo wacdi iyo waana u tahay liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid qofkii qalbi fiican leh qalbi aan xumaan lagu fikirin oo khayrka lagu fikiro qalbi aan dadka lagu dhicin laakiin dadka lagu taageero qalbi aan dadka lagu dilin laakiin dadka sabab loogu noqdo nooleynteeda dadka iskale ama dhagaha soo riday oo dhagahooda soo raariciyay dadka noocaas ayuu khayr iyo wacdi iyo wanaag u yahay وردتك مؤمنين توبشان وبالعجيب بضن وبالخير إيا وناقل وبشي ماموسك إيا شرفت لها إيصوما بعدما إلى خير إيا وناقل قارسيي محانا لك ربا بش بركيسا إيا رمضان بعدما يعرطي هذا بس ذي لسوما وحالو سوما لبا أرين أواوين هدي أي صورة قل نقطو لبا حالة أواوين هدي صورة قل نقطو مسلمين تا واجب أيي كتاهي إني مركز صومان بعد ذلك رسولك صلى الله عليه وسلم وحاونوت المامي إن بالشلفيري أما هدي لأركال صومو رسولك وحويري صلى الله عليه وسلم نبيغو وحاونوت المامي هدي بشا آن أرقنا إنان صونو هدي بشا آن أرقنا هدنا إنان أفرنو حالدا أيونوت المامي صلوات الله وسلامه عليه هذا بأركت أيان لغو سوما أركتنا واللغو أفرا
انت كهريس رسولك وحوك لو يري لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين هكلا هرمرنا رمضان كدلت كيس صون هالمال أما لبا مال إلا رجل كان يصوم صوما فليصم qof yawmi jiray maahane asagu ha soomo waxaa mamnuuca bisha ramadaanka haddii hal maalin ama laba maalin ay ka dhiman tahay in la soomo ilaa qof caado u lahaan jiray inuu soomo maahane matalan qof ayaa caadadiisu waxay ahayd isniinta iyo khamiista inuu soomo maca daalika maalin isniina ama khamiisa ayay ku soo aaday ramadaankoo maalin ama laba maalin ka dhiman qofka noocaasi wuu soomi karaa laakiin qofkaan caado u lahaan jirin inuu asagu markaa ibtidaaciyo ama uu bilaabo ramadaankoo yoon ama laba maalin ka dhiman waa mamnuuc laa taqadamuu ramadaana bisawmi yawmin walaa yawmayn ilaa rajulun kaana yasuumu sawman falyasum kaa wuu soomi karaa ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaba xaaladda waa inay muslimiintu ogaadaan midda xigta bisha ayaa la fiirinaa rasuulku wuxuu yidhi idaa ra'aytumuuhu fasuumuu wa idaa ra'aytumuuhu faaftiruu fain gumma calaykum faqdiruu lahu haddii aad aragtaan sooma haddaad aragtaanna afura haddaad aragtaan sooma ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam aragtidaa la tilmaamayo waa bisha ramadaanka aragtideeda middaa la tilmaamayo bisha ramadaanka aragtidiisa waaye haddaad aragtaan afura waa aragtida bisha shawaal ama bisha hilaalka shawaalka ayaa loola jeedaa haddii laydinka qariyo ama laydinka daboolo ood arki weysaanna u qadara ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nebigu xadiis kale ayuu ku yidhi laa tasuumuu xataa taraw alhilaala ha soomina ilaa aad hilaalka aragtaan hilaalkan waa hilaalkii ramadaankee walaa tuftiruu xataa tarawh ha afurina haddana ilaa aad ka aragtaan aragtidaa dambe waa hilaalkii shawaale fain gumma calaykum faqdiruu lahu haddii laydinka daboolo dushiinood arki weysaan u qadara nebigu xadiis kale ayuu ku yidhi laa tasuumuu qabla ramadaana war ramadaanka hortiisa ha soomina ee suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi aragtidiisa ku sooma aragtideedana ku afura fain xaalad duunahu ghayaabatun faakmiluu 30 yawma haddii la kala dhex galo oo bisha sukadeeda ay idinka qariso ghayaabo waa daruure 30 kaamila ayuu yidhi nebiga riwaayad kale waxay tilmaantay fain gumma calaykum haddii dushiina laydinka qariyo laydinka daboolo faakmiluu ciddata shacbaana 30 bisha shacbaanka 30keeda kaamila riwaayad kale ayaa tiri fain gumma calaykum fasuumuu 30 yawman haddii laydinka qariyo 30 maalmood sooma macnaha haddaad arki weyseen bisha shawaal oo ay daruur idinka qariso haddaba aragti ayaa lagu soomaa aragtina waa lagu afuraa marka sidaa darteed waxaa loola jeedaa matalan caawa maanta haddii bisha shacbaanka ay tahay 29 oo caawa 30 ay noqon rabto waa suuragal inay bishu dhalato waayo bilaha cirka ka soo dhasha ma jirta bil 30 gaarta iyo mid 28 ku dhammaata sida bilaha miilaadigoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu noo tilmaamay biluhu inay 30 yihiin ama 29 rasuulku wuxuu yidhi innaa ummatun ummiyu waxaan nahay ummad ummi ah laa naktub walaa naxsub aan wax qorin waxna aqrinin ashahru haakada wahaakada yacni maratan 29 wa maratan 30 marna waa 30 marna waa 29 sidaa darteed bishu waa 29 ama waa 30 haddii caawa ay bishu 30 noqon rabto waa la fiirinaa muslimiintu waajib ayay ku tahay inay bisha fiiriyaan haddii la arko waa suuragal ayadoo 30 noqon rabta inay dhalatay beri waa la soomaa haddii la arki waaye ama ay dhalan weyso ama se ay habeenkaa tahay habeen daruur u saaxiib ah waxaa loogu talagalay dadku inay shacbaanka kaamilaan faakmiluu ciddata shacbaana 30 bisha shacbaankaa 30keeda kaamila ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaba labadaa arrin ayay ku suurageli kartaa beri inaan soonno waa bisha oo la arko ama shacbaankoo markaa 30 laga dhigo
hal qof oo muslim ah aragtidiisa waa lagu soomaa muslimiinta intooda kale waajib ayay ku tahay inay soomaan hal qofood keliya haddii bisha uu arko caadil uu yahay nin mataqaanaa ilaahay diintiisa loogu kalsooni badan yahay haddii markaa uu yahay waayo ibnu cumar wuxuu yidhi ilaahay ha ka raadi noqdee taraa annaasu alhilaal dadka ayaa waxay istustuseen ama ay isugu farfiiqeen hilaalkii waa bishii ramadaanka ahaa ileen habeenka ugu horaysa waa adag tahay si loo arko aad bay u yar tahay hilaalkii ayay dadka isugu farfiiqeen way arki waayeen fa akhbartu nabiya nebiga ayaan u sheegay annii ra'aytuhu inaan anigu arkay fasaama wa amara annaasa bisiyaamihi nebigu waa soomay dadkiina wuxuu amray inay soomaan haddaba hal qofood oo caadil ah haddii uu arka bisha aragtideeda muslimiinta intooda kale waxaa lasmi ku ah ama waajib ku ah inay soomaan ibnu cabbaas radia allahu canhuma ana acraabiyan jaa'a annabiy nin heer baadiya ayaa